gudoomiyaha gobolka Sanaag oo ay weeliyaan taliyaha ciidanka booliska gobolka Sanaag iyo lix isuduwe oo kala ah wasaaradaha caafimaadka gobolka Sanaag, xanaanada xoolaha, deegaanka, waxbarashada, biyaha iyo mas'uuliyiin kale ayaa gaaray degmada Dararweyne ee gobolka Sanaag. markii ay gaareen wafdiga gudoomiyaha gobolka Sanaag hogaaminayo waxa halkaasi ku soo dhaweeyay maamulka deegaankaasi Dararweyne, cuqaasha iyo waxgaradka. ugu horreynna maayirka degmada Dararweyne Maxamuud Xasan Saleebaan, cuqaal iyo waxgarad halkaasi ka hadlay waxay soo dhaweeyeen wafdiga gudoomiyaha, waxayna sheegeen sida ay taamka u tahay nabadgelyada deegaankaasi. degmada Dararweyne waa nabad 4 sano la soo dhaafay waxay ku jirtay degmadu Barmadow 8 bilood ka hor deegaanada degmooyinka Dararweyne iyo Cunafweyn waxa uu beriyay waa cusub nabadii kadib wax shaqaaqa iyo wax dhib ah deegaanka laguma arag ka maamul ahaan cusub ahaan nabadan la soconay awoodayada koobaad waxaanu saaray 4 bilood oo ugu horeysay boqolkiiba boqol waxaanu saaray sidaanu nabadgelyadii iyo heshiisyadii halka ka dhacay u hirgelin lahayn. waxaanu isku daynay oo ku dadaalay inaanu ilaalino intii awoodayada heshiisyadii ummadaasi ku heshiisay aanu ilaalino. gudoomiye ku soo dhawow degmada Dararweyne deegaankaagii iyo maxaan ku dhahay dadkaagii iyo bulshadaadii aad mas'uuliyadda iyo madaxda waad ku soo dhawow gamca furan. aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa maadaama aad priority-ga na siisay nabadda waa sida loo sheegay. aad iyo aad bay boqolkiiba boqol wanaagsan tahay. dadku way qaateen waxay ka soo daaleen oo de khasaaro way soo arkeen iyo dhibaato. waa noo xasiloon tahay nabadgelyadu way noo wanaagsan tahay. halkani waa degmadii Dararweyne waa dhulkii naafoobay ee colaadaha yar ee shaqooyinka sukay naafayeen. maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay nimcada iyo nabadgelyada siiyay. horta alxamdulillaah rabbil caalamiin dhibaatooyinkii iyo wixii xanuunadiina soo maray ilaahay waa naga daweeyay. caafimaad baanu qabnaa, nabadgelyaanu haysanaa, dadkii walaalaha ahaa isu soo noqday baanu isdhex jooga baanu haynaa. waxaanu u baahannahay oo kaliya waxa weeye dawladayada iyo maxay haytay dadka iyagu sidii horumar ay hore noogu marin lahaayeen insha Allah ayaanu rajaynaynaa. horta taliyaha ciidanka booliska gobolka Sanaag gaashaanle dhexe Saleebaan Ducaale Ubaxle Dhagacade oo la dardaarmay bulshada deegaankaasi ayaa ku booriyay inay adkaystaan nabadgelyada ka hana qaaday deegaankaasi. reer Dararweyne haddii aad doonaysaan inaan nabadgelyo dadku horumar gaaro oo waqtiga askaga lumisan colaadda aad ka soo kabataan nabadgelyada lagu faraaday. wax walba waxa furayso noqonaya nabadda ku faraadayga. waxaan u baahanahay laba gacmood nabadda isugu geyno. waxaan u baahanahay horumarka Dararweyne laba gacmood isugu geyno. waxaan laadanahay odagii buluuska waxaan ku dadaalayaa oo ugu horeysiinayaa baahida buluuska halka taala inaan wax ka qabto buluuskeeno. intaasaan injineer Axmed Cismaan Xasan barasaabka gobolka Sanaag oo gabagabadii isaguna halkaasi ka hadlay waxa uu sheegay in ka xukuumad ahaan baahiyaha deegaankaasi degmada Dararweyne ee ka soo kabashada colaadaha wax badan ka qabanayaan. bulshada gaarsiinaya dhamaantay waxaan u soconay waxa weeye Dararweyne inaan marka koobaad ogaano marka koobaad inaan idinku hambaliyayno nabadii aad qaadateen sida aad u hirgeliseen inaan idinku hambaliyayno iyo inaan xaaladiina ogaano. waxay u baahan tahay nabadda hadda taagan in lagu duceeyo oo la idinku hambaliyeeyo. dad khayr qaba ayaa maxaan ku dhahday ka hawlgalay colaadii inuu joojiyo. waxaan leenahay kuwa halkay doonaan ha joogaan ilaahay ka abaalmariyo. bulshadaas ay badbaadiyeen, walaalihii isdilayay bay badbaadiyeen ay u kaceen. kuwa xagga ilaahay baan ugu ducaynaynaa inuu maxaan ku dhahday u abaalmariyo. waxa kale oo sii ducaynaynaa intiinii idinkuna fulisay ee hadda joogta Dararweyne ee walaalaha ee dhinacyada iswada haysta. anna waxaanu idin ballan qaadaynaa insha Allah baahiyaha halkaan ku aragnay oo dhan inaan waxaan ka qaban karno ka soo qabanno ee si fiican aan u wada shaqeyno. Maxamuud Cabdi Barre, Bulsho TV, Ceelafweyn.